maalin ma nima jartay ama nin daarooda on ku kala qabo dad baa ay soo wacay ugu dhahay kaas karaamo ma lahan haddaa u jawaabto calashaan qof dhintay oo meeyda ka soo qaad ha u jawaabin mid baan ku leeyahay anuu hadalka ku soo koobayaa kugu badin may annagu baa hafka dhar kuma dhaqano sawirkayga idig haddaada si wanaag iyo walaaltinimo aadan haysanaynin hadda wallahi aad baan uga xumaaday waayo inta ay soo gaartay oo inbox-ka lagu soo qoray xafaatankii ka dhaxeeyay ragga inuu gabdhihii hoos galay baad moodaa runtii aad baan uga xumahay war gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta oo joogan Ilaahay ha dhowro gabar qabiil laguma canaanto ama laguma attaago Cabdi Xafiidow Morgan waa adeerka ee soo fadhiisi live wareyso weydiine xasuuqii loo geystay walaalaheen Somaliland shuubadii ku dhasho was raallo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قارت قمة قاهية جمدنا ملك سوتشوتان سكستو مقالك دي سو قاريبة هلك دقة داوانيسان وجانا كشاع شيك وياك كشاع شيك كسر وهذا برنامج كذا لين تبلشدو عاود كواهي دقال كدوفان تقبيله دو برها بلشدو سوين وكفاف في هذا صوته بحيته وهاك صاحب يال أرنتن أياتمد كدمركي فرحية كبيرة أو جوابتي نلقو مقعبة كابتن أيوب وسيد الشيء وقف عمر دولا علي فرحية كبيرة وحسك صدبتي مقالات ودير كاسو يقع خليسو نكن لقو مقعبة كابتن أيوب وبرها بالشداد واستعمال جرهام فيسبوك دتكو حيوكلا تشبين يوتيوبرسي فيسبوكرس طبعا وحنا انت بدن سامين بدن دتك فيسبوك استعمال وهي كدا وشو بدن دتك يوتيوب استعمال هذا بقى أرنتي يوتيوب واي كتكتي ومركن وحال اسكو شرشريا فيسبوك فرحية كبيرة ayaa shalay soo duubtay muuqaal hadii aysan daraad ahayn kaasoo iga hadlaysay muuqaal ay sheegtay ninkan ugu gofay Umar Buleys makana Allah naxariisto oo ku tilmaamay qof boonay wax saas camal ah deetana markay muuqaalkaasi soo duubtay waxa xigay fariin ama jawaab kul oo degdeg ah wali ani hawiyaan ku soo dhigtay ni hawiyaan ku dhiga mar waar maya hadaba ninkan inta jawaabta kulul bixin waxaan markan rabaa inaan la wadaago muuqaal kooban oo ay ku soo koobaysa farxiyo kabeere qaabka ama sababta ay ninkan u haysato ama sababta ay ninkan macnaha ugu muuqaalka sababtay in muuqaalka u soo duubto iyo jawaabta uu ka bixintaana garin bal farxiyo kabeere muuqaalkeeda markan aan wadaagno dad baa ay soo wacay ugu dhahay kaas karaamo ma lahan haddaa u jawaabto calashaan qof dhintay oo meeyda ka soo qaad ha u jawaabin sababta lagugu jawaabayaan kuu sheegaa loo aad tahay oo doqon baa taho haddii lagaa aamuso inaad saxantaad isu maleehe intaasi kadib waxaa Facebook soo fadhiistay Captain Ayub kaas oo mowduuca meesha u jeeday maahana kaba leexay sababayna in dadkan qaabka qabiil baraha bulshada isku jafay xilligan waan aaminsanay oo asagu macnaha oo kaalinteeda bilaabay maadaama uu carabka ku edkay arrimo qabiilna uu galay markii uu jawaabay farxiyo kabeere bal markan maxuu yiri maalin alla keenan inta idin soo fariisay ja qof kala laado lagu arkay maalin kasta qof nin baad kala laadaayo ka aamusa wali ani hawiyaan ku soo dhigtay ni hawiyaan ku dhiga mar waar maya ilka asmaan la ku dhigtid khadar yaro am jartay ku ruus maalin la ku dhigtid maanta anaga la laada maalin nima jartay ama nin daarooda on ku kala qabo mid baan ku leeyahay anuu hadalka ku soo koobayaa kugu badin may annagu baa hafka dhar kuma dhaqano hadaba jawaabtaasi waxa ay sababtay in nasteexa indo oo ah qof aan bashaqo ku lahayn arrimo qabiil darteed loo jaayfay waa gabar Soomaaliyeed waa gabar fanaanada waa gabar aan waxba galabsan laakiin waxa ay ku mutaysatay oo dhibaato ku dareentay oo laga yaabo qoraalka marka akhristo oo xanuun weyn u keenay jawaab loo waday farxiyo kabeere laakiin qaab qabiil u dhacaysay baa waxay keentay in nasteexa indo markiidan lagu jawaabo hadal cagsi ku ah oo ah in ay farxiyo kabeere wax lagu tilmaamay tahay wax ka daran maadaama ay ku heeb tahay qofkii farxiyo kabeere jawaabta siinay oo si qabiil u hadlo sawirkayga idig haddaada si wanaag iyo walaaltinimo aadan haysanaynin hadda wallahi aad baan uga xumaaday waayo inta ay soo gaartay oo inbox-ka lagu soo qoray qoraalkaasi runtii aad buu u dheeryahay mana jecel inaan anagu ku dhawaaqaydin aqriyo laakiin muhiimadda guud oo ka socdo waxay ahayd maadaama Captain Ayub ninka lagu magacaabo markuu farxiyo kabeere u jawaabayay isagoo aan aaminsanahay inuu wada qaldan oo maray
oo soo qaatay arrimo adigu aan gabdhaha maadaama waxa ay gabar tahay fiicnayn in gabar Soomaaliyeed waxaas lagu tilmaamo yiraahdo baaq baa tahay wax saas camal u qaado isla nin kale oo lagu magacaabo Facebook isla isticmaalaan Facebookana dabcan caan ka ah ayna isku heebiyihiin sidoo kale Farxiyo Kabayre baa waxa uu yiri Kabtan Ayuubow hadii Farxiyo Kabayre ay tahay qof dumar oo sida sheegtay aad baaf ku tilmaamtay nasteexa indho iyadoo way ka darantahay waxa ay tahay balli haddaba dadkan labada qabiilo kala jabay ee social media dagaalka duufaantu dhex marayso markaan ka nimaano haddii aan u hadalno qaab Soomaali weyn ama qaab xal hadalhayntan dabcan aad bay baraha bulshada maanta u qabsatay gaar ahaan Facebook waayo Soomaalidu Facebook aad bay ugu badan tahay YouTube kamar dhow baa loo soo jabay laakiin Facebook aad baa loo isticmaalaa daawashiisuna badan tahay dad badan hadda iga daawanaya aad baan u salaamaya runtii markii Soomaali ahaan loo hadlo runtii rag way isqaban karaan wayna is dagaali karaan oo raggu waligeedii Soomaali qabiil isku leeynaysi oo markii maanta 5 laga dilo bari inaad 6 soo dishaa ama 5 kale soo dishaa waa wax qabiilka ku dhigay ama wax Soomaalidu macna caadi waa in kastoo wax wanaagsan ahayn oo jahannaba iyo naar lagu mutaysanayo haddana Soomaalidu xagga xaniyaha xaggooda iska ma jirtay laakiin hablaha may runtii ana ahaan aad baan uga xumaaday markaan arkay gabdho Soomaaliyeed oo qaab qabiil darteed lagu gafayo oo baraha bulshada hadalhayntoodu ay aad u wareegayso taasoo social media u noqday mid caadi xitaa isku ridaa ama xifaaltankii dadka qabaylada ka dhaxeeyo qabiilkood muddo mar laga tagay inuu soo cusboonanayo xifaaltankii ka dhaxeeyay ragga inuu gabdhihi hoos galay bad moodaa runtii aad baan uga xumahay war gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta oo joogan Ilaahay ha dhowro gabar qabiil lagu macaanto ama lagu ataago waa fiicnaaleed yarkaas jawaabtu bixinay Kabtan Ayuub ma leeyahay waxa fiicneed inuu si kastaba hadalkiisa xanafa ahaade laakiin xagga qabiilka inuu ka daayay sidoo kale ninkan ay isku naanaystihiin Ayuub Carlo Farxiyo Kabayre u doodayay isagana nasteexeendo inuu u gafa maahay walba hadduu shakhsiyad difaacayo waxa la rabaa inuu magac qariyo yiraahdo saas waaye baasha aan iska dayno gabadheeda iga leex laakiin inuu nasteexeendo soo qabto isagana gaf weyn bay ku yahay gabdhaha Soomaaliyeed waxa la yahay meel kasta ay joogaan Allah ha sharfo runtii wax walba in ku dhaco waxa waa isaga dul qaata gabdhaha Soomaaliyeed wayna dhaleen waynoo dhaxeen waana aan dhalno marka runtii in sharaf iyo karaamo loo muujiyo maahan duufaan iyo dagaal social media ka socday in la soo dhaxgeliyo aad baan uga xumahay runtii waad kuma santaa daawashada muuqaalka waa ka shaashakay sida ayo muuqaal dambaysan